kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii milicsiga afka hooyo waxaan ku sugannahay magaaladii Ceeri Gaabo ahayd bal maanta qaybteennii lixaad iyo barnaamijkeennii milicsiga aynu eegno halka aad kala socotaan waa RTV waxaan ahay ficil burkud dhidi la socod wanaagsan ku soo dhaw marka hore barnaamijka adoo magaca ku bilaabay wallahi aad iyo aad baan u dhawaay magacaaga waxa la yiraahdaa Maxamed Jaamac loo garan og yahay MMJ oo magac fiican MMJ su'aal baan ku weydiinaynaa af Soomaali taan ku weydiinteeda kale ina bulshada iyagana uga faa'iideyso oo weydiisid baan rabnaa su'aashaan ku weydiinayo waxa weeye habeenka dabshidka habeenka ka dambeeya biyaha la sugaa maxay yihiin bismillahir rahmaanir rahiim niyo waxaan isla dhaqankaadi weydiisay oo kii magaalada anigu magaalada horta ku dhashay ka xumaay dhaqanka magaalada miyiga aad uma aqaani laakiin haddii aan isku dayo waxa la yiraahdaa biyo dheereed ha waayahay aad iyo aad baan u mahadsantahay mid taas oo kale weydii bulshada weydii bulshada waxaan weydiin lahaa geela marka maxay tahay la waraabinayo hees ka mid ah heesiisa ha baan bulshada weydiinaya waxaad noo sheegtaa bahasha tan aad gacanta ku sidatid af Soomaali ahaan noogu sheeg waxa la yiraahdaa dabshid baa la yiraahdaa waa af Soomaali ahaan ku noqon dabshid bay noqonaysaa hayd arabigana walaacay ku noqonaysaa walaaca ha hayd arabiga walaaca af Soomaali waa dabshid weey af Soomaali waayahay aad iyo aad baa u mahadsantahay kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii milicsiga afka hooyo waxaan maanta ku sugannahay magaaladii Ceeri Gaabo ahayd oo aan bariyaha Kambaroosin ka dhiganay garabkayga midig waxa fadhiya mid kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanka gobolka Sanaag soo dhaw magacaaga horta waxa la yiraahdaa Caalin Xaaji su'aal baan ku weydiinaynaa taan ku weydiinteeda oo kale bulshada inaa weydiisid baan rabnaa diyaar baa u tahay gobolka Sanaag jira ciyaaro badan oo laga ciyaaro oo maxay tahay ciyaaro dhaqameed ah bal afar kamid ah noo sheeg gobolka Sanaag waxa laga ciyaaraa ciyaar la yiraahdo Jaandeerta waxa laga ciyaaraa ciyaarta la yiraahdo maxaa ku radaa howlabeyda waxa laga ciyaaraa ciyaarta la yiraahdo Sayliciga ciyaar Saylici baa laga ciyaaraa xitaa ciyaar Sayliciga xitaa waa laga ciyaaraa gobolka Sanaag saddexda ciyaarood baa ciyaar Saylici ma laha miya ciyaar Soomaaliyeed gobolka Sanaag waa laga ciyaaraa ciyaar Soomaaliyeed waa gartay maxay kale mid baa noogu kaadhay taafad waa la sanahay waayahay aad iyo aad baa u mahadsantahay barnaamijka su'aal kale saas oo kale ku darso dhakhtarka beeshankiisa cuna baan weydiinayaa anigu dhakhtarka beeshankiisa cuna ninka doctorka anigu bax caafimaad baan ahay tusaale aniga oo daaweynaya qof bini aadana daaweynaya ibin qof bini aadanka cuni kara waa may Soomaa waxaan weydiinayaa marka dhakhtarka cuna beeshankiisa ama bukaankiisa cuna dhakhtarka bukaankiisa cuna wala inooga baahan yahay waa tahay daawadayaal wali waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeennii milicsiga afka hooyo waxa garabkayga bidix fadhiya mid kamid ah aqoon-yahanka gobolka Sanaag soo dhaw magacaaga Xasan Faarax Jaamac xasan su'aal af Soomaaliyan ku weydiinayna ama dhaqana taan ku weydiinteeda kale ina bulshada iyagana uga faa'iideysid oo iyagana su'aal saas oo kale ay weydiisid baan rabnaa diyaar ma u tahay insha Allah waayahay hees baa waxay leedahay haddaan dhagax u yeedho yabadh baan ka heli lahaa yabadh waa maxay markaa yabadh noo micna haddaan su'aasha isku dayo kelmadda yabadh kelmad waxaan u malaynayaa heestaas waxa qaadi jiray Allah u naxariistay Cabdi Taari marka yabadhku waa dawanka ka soo noqda gidaarka tusaale ahaan buurta dhawaaqeeda marka aad hadasho dhawaaqa ka soo noqonaya ayaa loo yaqaanaa yabadh marka abwaanku wuxuu uga jeedaa dhagaxaas jawaab bay iga soo noqonaysa haddaan la hadlo halkaas uu ka dheeganaya marka yabadhku waxa weeye waa dawanka ama dhawaaqa ka soo noqonaya buurta ama dhagax waayahay aad iyo aad baa u mahadsantay mid saas oo kale noo weydii bulshada ab isugu yimaada adeer ku kala taga abuu isugu imanaya adeer waa ku kala tagaya su'aashan insha Allah waayahay sidee u aragtaa barnaamijkan waa barnaamij aad u wanaagsan wuxuu soo nooleynaya dhaqankii iyo af Soomaaligii waayo hadeer waxa muuqata in dhaqan burbur iyo af Soomaaliga oo laga sii tagayo af Soomaaliga aan eri baxayntiisi la ururinayn marka dhaqankan wuxuu soo celinayaa ama u kabaya aqoontii fahamkii laga lahaa af Soomaaliga
adoo magacaaga wala wadhow magacaygu waa Salmaan Maxamed Xasan diyaar baan u haydee su'aal Salmaan su'aal baan ku weydiinaynaa ama af Soomaali baan noqonaysaa ama dhaqan su'aashan ku weydiinteeda oo kale dhalinyarada ina uga faa'iideyso iyagana weydiisid baan rabnaa diyaar baa u tahay Salmaan diyaar baan u hayaa waayahay dayrtu waxa jira magacyo leedahay way roobabka xilliyadeeda way 6 magac bay leedahay 6daa magac bal noo sheeg 6daa magac ee dayrtu ay leedahay macnii marka ay dayso roobka Soomaaliya roobab lixyadeeda 6daa waxa kamida sirmooydada oo kale iyo ayaa mala kamida marka su'aashaas niyo way iga yar khaldantay su'aashaas waxaan weydiinayaa dhalinyarada dadka daawanaya barnaamijkan waxaan weydiinayaa berigii hore xoolaha wixii lagu waraabin jiray ee ceelka lagaga waraabin jiray iminka riigagii waxba lagu waraabiyo beeraha baraagii waxba la qoraa moogto xoolo ku cabaan laakiin berigii hore waxba ceelka lagaga soo dhaamin jiray biyaha xoolaha lagu soo dhaamin jiray mise kii loogu shubi jiray oo lagu soo jiidi jiray kii lagu soo qaadi jiray ayaan weydiinayaa bulshada ku soo dhawo marka hore magacaaga Ahmed Maxamed Cige Ahmed Maxamed Cigo barnaamij baan wadnaa milicsiga afka hooyaa la dhahaa su'aal baan ku weydiinaynaa taan ku weydiinay su'aalo la mid oo kale bulshada inay weydiisid baan rabnaa diyaar ma u tahay waayahay xoolaha dhaqanka say isku tiin isku fiican maxaa dhaqataa ayaa de wax badan adigu geela lo'da riyaha idaha ya waayahay geela ma garanaysaa halka kuriska ka dambaysa meeshaas magaceed maraqsaar baa leedahay maraqsaar baa leedahay awrka qooqa halkiisa jeegada dambe madow yar buu ku yeeshaa madowga maxaa la dhahaa madowga wax la yiraahdaa markuu awrku xilliyada kulku yeeshaa oo xilliyada dhididka wax la yiraahdaa dawaad baa lagu yiraahdaa af Soomaaliga su'aal ama su'aal baan bulshada anigu weydiiyaa su'aal ka baday hadda u kabo wayna dhagaha kaga yaabaanay nimanka saaxiibada baan ugu horeysiinaya ma cidii daawanaysa muuqaalkaaga dhan baa kaaga soo jawaabi doonta meel kasta jooga cidii daawanaysa waxaan leeyahay waxaad iiga soo jawaabtaan iminka tusaalaan geel oo kale caanihiisa oo kale marka hashu dhasho magac baa la yiraahdaa markay xoogay oo kale tusaalahaan dulcad la yiraahdaa markay xoogay irmaan tahay bal markay dhasho oo kale magaceeda hasha magaceeda laftirkeeda wax la yiraahdo hasha magaceeda yaani caanaha marka hashu marba waqti bay joogtaa markay iminka dhasho oo kale caanaha magaciisa magaceeda hasha lafteedu magac bay leedahay magaceeda iminka tusaalahaan markay hashu xoogaa irmaanta oo kale dhowr bilood oo kale wax la yiraahdo dulcad Cabdiraxmaan Jaamac yiraahdaa Cabdiraxmaan su'aal af Soomaaliya ku weydiinayna taan ku weydiinay teed oo kale bulshada inay u faa'iideysid baan rabnaa iyadana aan ku weydiin diyaar ma u tahay diyaar waqtiga cilcilowga la dhaho waa waqtigee cilcilow cilcilow ma garanayo cilcilow waa tahay daawadayaal intaas ayuu inoogu egyahay barnaamijkeennii milicsiga afka hooyo oo aad kala socoteen RTV waxaan ahay Ficil Barkuud Dhidhi barnaamijka su'aalaha bulshadu idin soo weydiisay waxaad kaga jawaabi doontaan commentiga barnaamijka idinkoo sii share gareyn doona la socod wanaagsan qaybihiisa kale ayaan idin leeyahay